isla arrimaha Soomaalida Mareykanka ayaan ku jirnaaye waalidiin badan oo Soomaali ah oo Mareykanka iyo qurbaha degan ayaa dhibaato kala kulma korinta caruurta qurbaha oo ka duwan habkii Soomaaliya. burbur qoysas badan ku yimid ayaa keentay in hooyooyinku ay kali ku noqdaan korinta caruurta, waxayna aabala'aantu qoyska ku keentaa in caruur badan ay qaadaan waddo khaldan. Falastiin Axmed Iimaan ayaa booqatay gobolka Minnesota oo warbixintan nooga diyaarisay hooyooyinka kaligood ilmaha korinaya. inkastoo aysan jirin tirakoob rasmi ah oo ku saabsan tirada kala tagga qoysaska ee bulshada Soomaalida ee dalkan Mareykanka, sababo dhowr ah awgood. Tan koowaad oo ah in qaar badan oo ka mid ah bulshooyinka Soomaalida aysan isku guursan sharciga dalkan ama aysan samayn diiwaangelinta guurka ee dalkan Mareykanka, iyo tan kale oo ah in aan furiinka loo diiwaan gelin qowmiyad ahaan. Imaamka masaajidka Ummatul Islaam ee magaalada Minneapolis waxa uu sameeyay nikaaxa 10,000 oo muslimiin ah una badan Soomaali. waxa uu ka waramayaa furiinka qoysaska Soomaalida iyo waxyaabaha sababa. waxa ugu horeeya dhaqaaluhu waxa uu dhisaa waxaana uu burburiyaa. haddaan soo qaato laba misaal, qoys labadii wada shaqeynaya asalka shaqada ninka iskale, gabadhiina way shaqeyn kartaa. markii labadoo shaqeynayaan guriyaha la kaban ay degan yihiin, noloshiina cirka aad u dhowlaaleed shaqadaadii nolosha adkaatay u caawi. qaar baa dhihi gabadhii adaa mas-uulka guriga. kadib marka ay kala tagaan hooyada iyo aabbaha qurbaha caruurta ku dhalay, waxay caqabad ka timaadaa wadaaga mas-uuliyadda korinta caruurta, taasoo marka dambena sababtay in xiriirka caruurta iyo waalidka midkood, gaar ahaana aabbayaasha, uu mugdi soo galo. Nuura Cali waa hooyo dalkan Mareykanka ku soo korisay caruur ay iyadu soo korsatay oo ay dhaleen walaalaheed. waxay ka waramaysaa sida ay u adag tahay in qof qura uu caruur ku koriyo dalkan. aniga kuwa soo koriyo way jiraan kaligay oo kolkii hore aan anu keenay, aad bay u rafaad badan tahay. caruur yar yar oo walaalahay oo wax walba oo aan koriyay baa jooga oo agoon yar raja aha oo qofna ku eedeynay, laakiin anigu aan koriyay. aad bay u adag tahay ilma aabihii magaalada joogo inaan saan u rafaaday kale loogu rafaado ma aha. Anisa waa hooyo kaligeed caruurteeda korsata. inkastoo aysan halkan ka jirin bulshadii caruurta wada korin jirtay oo ay mas-uuliyaddu tahay mid shakhsi ah, isla markaana ay hooyada kaligeed la kulanto culays badan, haddana waxay Anisa qabtaa in nidaamka dalkani uu yahay mid caawinaya dumarka isla markaana siinaya xaquuq iyo kaalmo aysan gabdhaha ku nool Soomaaliya heli karin. waxay qabtaa in nolosha qurbaha ay tahay mid fursad wanaagsan siisa hooyooyinka kaligood caruurta koriya. wallaahi nolosha hooyo kalin ilmo korinaysa markaa tahay waa adag tahay, laakiin way ka fududahay markii dhulka lagu korinayo. hadda Soomaaliya gabar single mother Soomaaliya joogto iyo gabar halkan joogto isku mid maaha. aniga iyo gabar Soomaaliya joogto isku mid ma nihin, because halkaan waad shaqaysan kartaa, waxbaad baran kartaa, adoo shaqaysanaya wax baran kartaa, ciyaalkaagana waa haysan kartaa. haddaad tahay qof aanan aqoon lahayn oo wax soo baranin, dowladda ku caawinaysa. marka waalidka caruurta lihi ay kala tagaan, waxay caqabadi ka timaadaa sidii ay u wadaagi lahaayeen mas-uuliyadda, dhaqaalaha caruurta ku baxaya iyo waxyaabaha kale ee caruurta u baahan yihiin. Qareen Cabdiwaaxid Sheekh Cismaan Qalinle ayaa sharxaya sida ay heer dacwo ama sharci u aadaan muranada la xiriira arrimaha qoyska iyo kaalmaynta caruurta. dhibaatooyinka ama dagaalka qoyska dhexdiisa ka dhaca, dadku waa iskhilaafi karaan, waa wax caadi ah, noloshay ka mid tahay, ceeb ma aha in la iskhilaafo. markii khilaaf dhaco waxa dhacaysa in booliiskii la waco. booliiskaasi markuu yimaad meeshaas, dhibaato waxa ka imaanaysa in labadii qof ka mid la xiro. inta badan aabbaha ayay ku dhacdaa haddii ay arrintu aanay si kale wax u dhicin. markii dagaal noocaas yimaad, dhibaatay keentaa. waxaa imaanaysa in qofkii rikoorkiisii xumaanayo oo xiritaan uu u galayo faylkiisii iyo taariikhdiisii. waxa taariikhdiisa u galaysa inuu dambiilay, in la eedeeyey oo dambi lagu eedeeyey. muhiim waxaa markaa inuu lawyer fiican qabsado oo arrintaa ka difaaca. waxa laakiin si gaara inaga inoo saamaysa, dadka qaarkood ma haystaan weli dhalashadii Mareykanka oo waxay qabaan green card oo deganaanshihi dalka, ama waa qaxootibay weli xaaladoodu tahay. dadkaas oo kale haddii dambiyada qaarkood lagu eedeeyo, waxa la faragelinayaa sharcigoodii. sharci yaqaan Cabdiwaaxid waxa uu sheegay inay adkaanta nolosha qurbaha ay keenayso inay adkaato wada joogista qoyska. sidoo kalena waxa uu sheegay in caruurta ay waalidkood kala tagaan ay soo food saarto xaalado adag haddii aysan waalidku wada korin caruurta. Mareykan sida kaliya looga badbaadi karo
ee ummaduhu uga badbaadaan waxa weeye in la helo qoys adag oo labadii waalidba joogaan. ilmuhu uu dayacmayaa hal waalid kuma filla, ama aabba ha ahaado ama hooye ha ahaato keligeed ah ama aabba keligiis ah. kuma fillaan karo inuu qofku keligii koriyo, waayo waa inuu shaqeeyo America qofku, waa inuu ama waxbarasho aado. marka ilmihii haddii labadii furiinkiiba dhex buu kusoo dhacayaa. waxaa jira hadda dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa ku jira gaangiska gobolka Minnesota. dhalinyaro aad u fara badan baa daroogada isticmaala, khamrida aad u isticmaala. dhibaatooyinkaas oo dhan waxay keenaan in la xirxiro. waxa inagu badan waxa la yiraahdo juvenile delinquency ama wiilalka dadka yar yarka, gabdho iyo wiilalba oo aan qaangaarka wali ahayn, haddana falaagoobay ee kolba bilaabaya inay dhaqamo cusub iyo daroogo iyo waxyaabo ay dhex galaan. Aways Xasan waa aabe, waxaan kula kulmay afaafka iskuul ku yaala Minneapolis, waxaana uu ahaa aabaha kaliya ee ay ishaydu qabatay xilligaasi ee caruurta keenaya iskuulka. waxa uu ka warramayaa sababta aysan u jirin aabayaal badan oo caruurta keenay iskuulka. waxa waaye dee waalid kasta ciyaal u dhalay, aabaha uu soo shaqo tagaa subaxii, iskooladana waxay bilowdaan 8 subaxnimo ama 7 barka. marka waxaa laga yaabaaba aabihii inuusan joogin oo shaqo jiro. marka qofka ku haray guriga waa hooyadii, waxayna keentaa ciyaalka iskoolka. marka ma aha aabaha inuu gabay roolkiisa, laakiin weli uu joogaa, dhinac buu ka shaqaynaya. waa jira aabbo hawshiisii gabay, laakiin waddanka la joogo ayaa waxaa saas ah. laakiin haddii aan dhaho aabaha weli waa nool yahay roolkiisa. Cabdirashiid Cali Warsame waa maamulaha iskuulka Twin Cities International. waxa uu faahfaahinayaa saameynta ay ku arkaan caruurta ka yimaada guriga hal waalid oo kaliya uu joogo. jiraan qoysaska inta badan dee waa dad wax kasta waa la yeelanayaa. waxaa jira qoysas runtii aan aabihii iyo hooyadii wada joogin. waxaa jira qoysas aabihii uu shaqo ku maqan yahay, hooyadii shaqo ku maqan tahay, amaba Afrika la kala jiro iska waxaan socday immigration ko kala marka intaasoo dhammi ardayga way taabanaysaa, siyaabo badan baan u taabanaysaa oo ka mid ah ardayda waxbarashadiisii oo kale. hadda waxaa jiray 5 sano ka hor reer baan waa inaan u qoro warqad ah ilmahan aabahood haddaanu Yurub ka iman oo loo ogolaan in Mareykan yimaado, ilmahan waxbarashadooda ma sii fiicnaanayso. inkastoo duni horumartay ay dumarkani ku nool yihiin, haddana waxaa jira in marar badan ay la kulmaan in lagu eedeeyo burburka qoyska ama loo arko qof ku kibray noloshan qurbaha, sida ay sharxayso Anisa. badanaa bulshada waxyaabo badan negative bay ka qabaan. hooyo kaligeed ilmo korsanaysa waxay u maleeyaan kow naag nin islaameed iska ceerisay. ninkii markii ku arkaa waxa ha ciyalka abood ma jooga maya waa ceerisay miya automatically qasab maaha in la ceeriyo. so waxay fikradaas ka qabaan. waxay kaloo ka qabaan fikrada inay yihiin naaga child support iyo lacag dawladeed iyo wax ku raadinayaan. maybe inay jiraan dumar saas ah, laakiin dumarku dhan maaha. marka laga soo tago culayska ay dusha u ritaan hooyooyinkan caruurta ku korinaya qurbaha ee kaligood ah, haddana waxaa jira mararka qaar in caruurtaasi aysan noqon waxyaabihii ay hooyooyinkaasi ay ku riyoonayeen ama ay qalbiga ku hayeen, oo caruurta ay ku adkaato dhammaystirka waxbarashadooda. mararka qaarna ay noqdaan dambiilayaal iyagoo da'yar oo xayndaabka ay sidaasi uga baxaan, amaba ay maskaxiyan u taabato burburka qoyskooda. inkastoo dhinaca kalena ay jiraan caruur badan oo gaaray horumar aad u sarreeya oo ka yimid guri waalid qurale.